bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran kanaalka Soomaali Kartoon maanta waxaan idiin wadnaa sheeko kale oo xiiso leh fadlan intaynu u gudagelin sheekada haddii aad ku cusub tahay halkan subscribe saar gamaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan soo gelino mahadsanid waxaa jirtay qiso hadda ka hor dhacday oo ahayd in gudoomiyaha maxkamadda Haaruun ay maalin maalmaha ka mid ah u yimaadeen laba naagood Haaruun waxa uu ahaa gudoomiye maxkamadeed oo caadil ah aqoon fiican oo leh sida wax loo xukmiyo waqtigiisana qof uga fiicnaa ma jiro xagga xukminta labada dumarka ah ee u yimid waxa didna ama daboolnaa wajigooda mid ka mid ah labada dumarka ayaa dhahday garsoore waxaan dareemayaa neefta oo igu yar sababta ah qolka ayaa aad u yar ee ma ii ogolaan kartaa inaan wajigayga marada ka qaado waxaa soo booday tii kale oo leh waa beenteed ee harumaysanin waxa ay leedahay weji qurux badan oo soo jiidasho leh haddii ay fiido ama daboolka ay ka qaadana iyada ayaad u xukminaysaa oo aad u exanaysaa waxaa hadlay gudoomiyaha maxkamadda Haaruun waxa uu yiri midee bilaabaysa warka midood ayaa tiri tan kale adiga bilow waxa ay dhahday aabahay waa uu geeriyooday tanna waa eedaday waxa aan dhihi jiray hooyo ileen waa ay soo barbaarisay si fiicanna waa ay soo korisay ilaa ka qangaaro gudoomiyaha ayaa yiri intaas kadib maxaa dhacay waxa ay tiri waxa uu yimid in adeerkay oo waxa uu iga soo doontay iyada waana ay ii guurisay eedadii waxa ay lahayd gabar markii ay gabadheedii qaangaartayna waxay u soo bandhigtay in adeerkay inuu guursado oo ahaa ninkayga 3 sano kadib markii ay wanaagiisa iyo dabeecadiisa aragtay laakiin eedadii ma aysan ku darsanin xisaabta inuu yahay ninkayga oo uu aniga qabo waxa ay qurxisay gabadheeda si uu arkay ninkayga markii uu arkayna waxa qancisay eedo waxa ayna ku tiri ninkayga ma ku guurinaa iyada oo ay ula jeedo gabadheeda haa ayuuna dhahay laakiin waxaa hortaan la xujadaas maxay tahay ayuu yiri inaad amarka gabadha walaashay aniga aan lahaado oo ah xaaskaaga koobaad waa uu yeelay ninkayga xujadii markii la gaaray maalintii guurka eedo waxa ay qurxisay gabadheeda waxa ayna u keentay ninkayga eedo waa ay ii timid waxa ayna igu tiri ninkaaga waxa uu guursanayaa gabadheeda amarkaagana waxa uu geliyay gacanteeda adigana saacadan laga bilaabo waxa tahay mid furan oo aan la qabin aniga waxaan noqday mid maalin iyo habeen isku xiga furan marka ay waqti ka soo wareegatay oo aan saas u fogeyn ayaa waxaa yimid ninka eedaday oo ka yimid safar fog waxaan ku iri ma i guursanaysaa waxa uu ahaa ninka eedaday gabiyaa weyn oo meel kasta laga yaqaano ninka eedaday waa uu ogolaaday waxaana ku iri waxaa ku hor yaala hal xujo waxa uu igu yiri maxay tahay xujadaas waxaan ugu jawaabay waa inaad amarka eedaday aniga aan lahaadaa oo aan aniga go'aan ka gaaraa ninka eedaday waa uu ogolaaday fariin ayaan u faray eedo waxaana ku yiri eedo ninkaaga waxaan u noqday xaas amarkaagana aniga ayaa haya saacadan laga bilaabana waad furan tahay eedo waqtiga laga bilaabo waxa ay noqotay garoob waa uu istaagay markii hadalka uu maqlay gudoomiyaha maxkamadda Haaruun dhibka iyo mashaqada meesha ka dhacday darteed waxa uu dhahay ilaahow waxaan ku yiri fariiso ma dhow hawshe gudoomiyaha maxkamadda waxa uu yiri waayahay dhameystir waxay dhahday waqti kadib waxaa dhintay ninkii gabiyaaga ahaa oo aan eedo ka furay oo ahaa ninka eedaday laakiin nasiib wanaag hadda waa ninkayga oo aniga ayuu iga geeriyooday eedo ayaa timid oo rabta dhaxalka ninkayga xoolaha uu igaga tegay ah eedo waxa ay xooga saartay inay xoolaha wax ka hesho waxaan dhahay eedo ninkan waa ninkayga ee maaha ninkaaga oo adiga mar hore ayaa lagu furay marka sidee baa dhaxalka ku rabi kartaa markii aan ka baxay ciidada eedo waxay u yeertay ninkaygii hore oo ah ninka gabadheeda qaba si uu waxyaabo la xiriira dhaxalka igala hadlo ninkaygii hore xaaskiisa iyo eedaday oo wada socda ayaa yimid ninkaygii hore markii uu i arkay waxa uu soo xasuustay waagii iyo waqtigii aan isla soo qaadanay waqtigii quruxda badnaa iyo maalmihii wanaagsanaa ee na soo maray aniga iyo isaga waxaan dareemay in ninkaygii hore uu galay rabitaan waxaana dhahay ma soo ceshanaysaa oo rabitaan miyaa kugu jira waxa uu yiri haa waxaan ku yiri waxa ku hor yaala shuruud waxa uu yiri maxay tahay shuruuda waxaan ku yiri waa inaad ii dhiibtaa amarka naagtaada oo ah gabadha eedaday waa uu ogolaaday waxaan ku yiri gabadha eedaday waad furan tahay saaca laga bilaabana waxa tahay garoob gudoomiyaha maxkamadda madaxa ayuu gacanta saartay waxa uu dhahay aawi wixii la isku haystay waxa ay eedadii dhahday gudoomiye miyaysan xaaraan ahayn in aniga iyo gabadheeda nala furo oo naagtaana qaadato labada nin iyo dhaxalka intaba waxa uu dhahay gudoomiyaha maxkamadda meeshaan ma iiga muuqato xurmo teeda kale maxaa dhib ah oo ku jira nin naag oo furay la soo guursaday hadda uu dib u guursado waa caadi midaas gudoomiyaha maxkamadda ayaa ka baxay xafiiska maxkamadda kadibna wixii dhacay ayaa uga sheekayay ninkaygii hore ninkaygii qosol ayuu la dhacay waxa uuna igu yiri ilaahay ha cadaabo duqda eedada ah ee aanan xishoonayn qofkii god qoda oo walaalkiisa ugu talagalay inuu ku dhaco isaga ayaa aakhirkii ku dhacay godka Soomaaliduna waxay dhahdaa god qiyaana ha qodin haddii aad qodidna ha dheerayn ku dhici doontaa moogide
daawada maanta sheekadeeni halkaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad ka heshay leegaree muuqaalkan oo asxaabtaadana u sii sheergaray oo la wadaag. intaynu ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.